الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحلقة ديني أفرية طبناد برنامج كسؤالها الديني وإن كسوق قادنا مع المهر رمضان سؤال الديني ونويدينا فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر درير سؤال شكوباد إحنا كسوق قاعدي هذا محمود عيسى أو شوكت قارة يوروب waxay tiri muddo 6 sano ah ayaan sakada ku bixin jiray lacag mana ogeyn arintaasi xukunkeeda marka ma dib baan u soo celiyaa oo aan soo qalleeyaa mise wixii dambe baan ilaaliyaa su'aasha labaad waa caasharuun oo joogta magaalada Gabiley waxay tiri waxaan haystaa lacag kaash oo 10 milyan marka doonay lacagta inaan sakeeyo ma dollar baan u bedelaa mise kaashnimadeedan ku sakeeyaa hadaan iyadoo kaash sakeynay qaabkeen noqonaysaa sakadeedu su-aasha xigta walaalka soo qoray wuxuu leeyahay xaaskayga waxaan uga taag waayay dawada dumarku isku cadeeyaan haddaan kala hadlana buuq iyo muran baa nagu bilaabma marka haddii sidaa reerku ku burburo ana raalli kama hiyadna dayn mayse miyaa wax dhibihii iga soo gaadhaya maxaad say igula talin lahayd su-aasha afraad saa'ilka soo qoray waa Saleebaan Cali wuxuu yidhi jaamacadaha iyo iskuullada qaarkood baa ardayga imtixaanka ku hooseeya darajada wax ugu dara si aanu ardaygu uga tagin wax laga yaabo arday aan shaqaysan wax loogu daro mid shaqaysan aan wax loogu darin arintaasi ma noqon kartaa cadaalad darro walaalka xiga wuxuu leeyahay inan baan damcayna guursado laakiin aabahay baa wuxuu igu yidhi reerkoodan wanaagsaneyn inantaa iska daa marka sheekh marka inan la doonayo reerkaa la eegaya mise iyada wanaageeda la eegaya su-aasha lixaad waa Cabdilaahi Maxamuud wuxuu yidhi xilligii dagaalkii Siyaad Barre ayaa geel xaaraan ay soo galay 3 xalaad ninkii lahaana hadda ma garanayo ma u sadaqeeyaa masaajid ma ugu daraa su-aasha toddobaad wuxuu yidhi saa'ilka soo qoray waxaa soo badanaya dhallinyarada xiira dhinacyada ama saraawiil ku dhegan oo ka dhacaya xidha lagana yaabo inay cibaadaysanayaan in safka hore ku jiraan maxaa talo u soo jeedin lahayd su-aasha sideedaad waa Maxamed Khadar oo jooga magaalada Hargeysa wuxuu yidhi khadiibku marka uu nabiga ku salliyo calayhi salaatu wasalaam isagoo mimbarka taagan ama uu aayadii akhriyo in Allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiyyi ama uu istighfaar ilaahay weydiistana yidhaahdo miyaanu jawaabnaa mise waa la aamusayaa su-aasha ugu dambaysa waa walaal Soomaaliyeed oo jooga dalka gudihiisa wuxuu yidhi Sheekh Maxamed mushkiladda ugu badan ee Soomaaliya haysataa waa balwadaha siiba qaadka oo mujtamacii aad u dhaxgalay maxaad is leedahay waa lagu joojin karaa ama sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karaa waa sidee fadal Sheekh Maxamed الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد سكات فدرغا gabadhaas waxay sheegtay inay lacag ku bixin jirtay miyaan soo qalleeyaa ka hore sidaasaad ku dayn maadaama culimada qayb ka mid ah ay qabaan in qiimo lagu bixin karo haba laga fadli badnaado wixii dambuun baad ku bixin doontaa raashin ka horena waxba soo celin maysid insha Allah 10 milyan oo shilin sida culimada u badan yihiin casrigan kama go'ayso ama kuma waajibayso sako waa $1,200 meelaha ilaa 3,000 4,000 meelaha lacagtu gaadho sako kuma waajibayso ilaa 85 gram oo dahab oo wuxuu dhigmaa marka ay gaadho wixii sadaqa aad ka bixin kartuun baad ka bixin dawada jirka cadaysa waa xaaraan ooridaadu marka ay marsanayso ama dumarka marsanayaaba xaaraan bay ku dhaceen qofkuna markuu xaaraan ku dhaco cidda ag joogta ehelkiisa ama ka mas-uula waxaa la gudban inuu u diido qu anfusakum wa ahliikum naara ehelkiina iyo naftiina naar ka nabadgeliya baa ilaahay uu qofkaasi kol hadduu baaliq caaqila yahay oo dee wax kala garanaya oon ilmo yar ahayn wixiina aada u diiduu dayn waayo dembigu isagu saaran yahay walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa sidii kale aad uga daweyn karteed waanada u sii wadaysa mooyaane wax dembi oo kaa saaray ma jiro qasabna kuguma aha inaad furto ama aada reerka burburiso ardayda
marka imtixaan laga qaadayo inuu cadaalad noqdo weeye qof walibana wixii uu shaqaystay loo sheego ama ha dhaafo ama ha dhaco laakiin hadday dhacdo dadka qaarkood in wax loo kordhiyo aanu mutaysanin waxa weeye mucalimiintii oo sameynaya qishkii ardayda ka ilaalinayeen meesha macallinkii wax qishayo maxaad u sheegi kartaa ardaygii wax loo sheegi karaa ma jiro meel duqdii durdurisay arankiina wuu ka daray idaa fasada alaslu walfarcu awlaa kol hadduu asalkii oo macallinkii fasahaaday ardaygiina baraka la-aan dheh arrintaas waa arrin qalada inay ilaahay uga toobad keentaana wey waa khiyaamo fi tacliim su-aasha aabbahay baa ii diiday gabadh inaan guursado mar hadduu aabba kuu diiday waad iska dayn barakaduna saasay ku jirtaa barakadu waxay ku jirtaa waalidka inaad aqbasho waxaa laga yaabaa adiga in caatifad jacaylku hayso ay ku madax martay laakiin waalidku uu taa ka madax bannaan yahay qiimeyntiisu markaa inay saxtaa suuragala kolkaa waalidka daacadiisu waa waajib gabadhanna kol haddaydaan weli ismehersanin oo wadahadalun ay tahay labada arrimood waxaa la qaadanayaa ta waalidkaa la qaadanayaa su-aasha qeybteeda ah gabadha maxaa lagu qiimeeyaa soomaalidu waxay dhahaan reer naag baa kaa raacda iyadunbaa la qiimeynayaa diinteeda iyo akhlaaqdeeda laakiin qoyskana ku xisaabtan buu leeyahayoo gabadhii hadday ku wanaagsan tahay oo reerku kulul yahay danba way kuu barakicin markaa inaad u fiirsato iyada laftigeeda aada bay muhiim u tahay ahaantu waxay yidhaha soomaalidu aani gunbay ka tolanta in baaberi wuxuu yihi gabadh baanu jecellay hooyadeedna way diidanta waxaan ku uhi hooyadeed la heshii dee way suuroobi weyday haddaba iska daa baan ku uhi mee gabadha waanu isjecellahay buuhi jacaylkaasi sii socon maayo maalin a isa seegteen ayuunbaa masallaha lagaa hoosiibi baan ku uhi sidii bay u dhacdo waa laga saaray almuhim aada buu u muhiimiya waalidka labada dhinacba wiilkii iyo gabadh inay tixgeliyaan oo guurku guur lagu duceeyo baraka u noqdo waxna waxa weeyaan waxyaabaha ku xeeran waxna waa miisaanka sharciga ah marka cumarba saasuu markii uu diiday inankiisa xaaskii markuu u diiday adic waalidak buu nebigu ui waalidkaaga aqbal waalidku haddii aanu arrin weyn oo xaaraana ku soconin wixii xalaala waa laga aqbalayaa taladiisa ninkaale geel xaaraana baan hayaa xalku waxa weeye ciddii lahayd inaad baadi doontood baafisood u celiso haddii ay dhinteenna dhexlayaashoodii mararka qaarkoodna way dhacdaa qofku isagoo garanaya ciddii lahayd iyo dhexlayaashooda inuu dhagooleeyo isagoo fadeexad ka cararaya oo idhaahda maba garanayo isnasaqo marka taasi xal noqon mayse markaad soo weyda ciddii lahayd ay kaa dhab tahay sadaqo waad ugu bixin kartaa inamada da-yarta ah ee dhinacyada xiiraya dembi bay ku dhaceen rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam nahaa can ilqazac wuxuu diiday waxa la yidhaahdo jeega xiirka madaxa in badhna timaa lagu daayo badhna dhowr loo yeelo sidan ay sameeyaan markaa qofkaasi xaaraan buu ku jiraa dhallinyaradu ha ogaadaan waana dhaqan shisheeye oo gaal lagu adeecayo iyo gaal baa la isu egeysiinaya oo markaa kalsooni iyo ilbaxnimo bideen da-yarti surwaalkaa dabadu ka dhacayaana waa la mid nasiib darra weeye qofkii oo cibaadaysanaya inuu xaaraan ku jiro hadduu xaaraan ku dhaco qofkuna cibaadaysanayo ajrigiisibaa naaqusaya nooc tacab khasaaraa ku dhacaya markaa diintiinna iyo dadkiinna iyo dalkiinna ku kalsoonaadoo dadka kale daba cararaysaan iska daaya su-aasha sideedaad ee odhanaysa khatiibku markuu mimbarka taagan yahay ee uu idhaahdo nebiga ku saliya ama isaguba rasuulka soo qaado sala allahu calayhi wasalam ama istikfaarta maxaa la yeelayaa qofku nebigu wuu ku saliyayaa sala allahu calayhi wasalam istikfaartana wuu akhriyaya laakiin hoos buu akhriyaya si aanu dadka kale ag jooga u waswaasinin mushkiladda balwaddu wax iska caana weeye oo dadkeenna dhibaato haysata weeye laba arrimood baa dadka soomaalida cirhbaha gooyey qabyaaladda iyo balwadda oo qaadkiiyo sigaarku ay u badan yihiin waxaasi qayrkood bay ka reebeen maskax badan oo diyaarada ay ku kicin lahaayeenna way ku qayileen intay dadka la yaabsay inay leen ama nacaawiya ama waxaanaad samaysteen ama qof ummaddani way horu martay iyagu horumarkoodii hoosu macaash baa ku dhacay oo way ku qayileen xalkuna waxa weeye in dadku ay ka toobad keenaan
cudurka noocaasa khatarta badana dhinac walba kharaabiyey dhinac walba dib in la isugu noqdo wey in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay wuxuu leeyahy isbeddelku idinka ha idinka yimaado haddii aanad isbeddel samayna inkaartii weli sii wado ilaahayna wuu kaaga darayaa marka saasaynu ku waaninaynaa dadka waxa waajib ku ah inay ilaahay uga toobad keenaan xaaraamaha ay cunayaan jaadka sigaarka daroogadiiyo iyaduna imika sii badanaysa waddada yare waddada weyn bay kugu ridaa markuu qofku jaad iyo sigaar iska isticmaalo maalinuu yaro xaraaroodu daroogada ku tuuraya dabeedna waabuu la qabsadayba inkaarii way sii waaweynaadeen marka rag iyo dumar la yaabo intaasoo dumaraa lagu odhanaya waxay la waaratay darooga isticmaasha oo ay siiyeen qaarkood waxyaabaa looga faaidaysanaya ka mid ramadaan bisha ramadaan fawaa'idkeeda waxaa ka mid ah qofkii mudminka ahaa balwadda la qabsaday inuu uga faa'idaystuu joojiyo marka haddii ilaahay kaa daweeye ka ducayso dib ha ugu noqonin wallahu aclam jasaaka allahu khayran ilaahay subxana wa tacala sheekha ka abaaliyo aynu u gudubna qaybtii su-aalaha tooska ah soo dhawaada qofka soo dhawaado sheekha waan salaamayaa su-aasheedu waxa weeye sakaatulfidriga hal meela ma lagu aruuri karaa si ay masaakiinta wax weyn ugu tarto bismi llahi raxmaan raxiim sheekh waxaan weydiinayaa rasuulka alay sla sl waa kii dardaaranka hala qoro markaa dardaaranka qofku markuu qorayo yuu u dhiibaya dardaaranka بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حوريتو joogta channelka ayaa waxaan sakaato fireeday ciidan siinaa ma hayno marka hadii dad magaalada jooga aan u soo wakiilano na bixiya oo wali ma ka baqay inay teamkooda ku bixin waayaan bal maxaan nagula talinayaa maxaan sameynaa السلام عليكم وسلامتين شيخ سؤال شيء waxa weeyaan waalidkay oo weynaaday oo xasuustiisu markaad isku sheegto mooyaane mar kale aan ku garanahayn soonkii iyo sakadii iyo salaadii ma lagu leeyahay su-aasheeda kalena waxa weeyaan salaada jimcaha ee ugu horeysa waqti ahaan xilmay ka bilaamaysa asalaamu calaykum السلام عليكم شيخ waxaan ku weydiinayaa su'aasheedu waxay ku saabsan tahay ducada nabiga waxa jirta waxa meel ka akhriyay laba nuur in la siiyay oo suuratul faatiha ah iyo suuratul al-baqara ayadaha ugu dambeeya halka ma nabiga kala taan loo baneeyay inuu ku ducaysto bisaynaaguna waan ku ducaysananaa haddii laakiin nagayna loo baneeyay inaan ku ducaysano qaabkeen ugu ducaysanana بسم الله ساشا هراء هيدان سكات فدرجة ما الله ورورين كرا إنتو سيلوسية مساكين ملك واجب كوحوي لا بحيوم هدي قف ولا ما أنتي سكار كاو بحيانا وهري كرا هدي الله استدعاء وحكوت يروي إن لبضيء la buuro oo masaakiin urursan loo qaybiyana waa la heli karaa laakiin faralku waa inaanu bixinno ama si wada jiraha loo bixiyo ama si kala gaar ah farada rasuulullaahi zakaat alfitr nebigu waxa uu waajibiyey buu leeyahay asxaabigu zakaat fidrigii buu waajibiyey ilaahay baana faray inuu dadka gaadhsiiyo waajibkaa marka si wada jira iyo si kala jira labadaba loo bixin karaa waanay jiraan dadka dabadda intay soo ururiyaan isagoo raashin badana inay gudaha soo gaadhsiiyaan dardaaranka marka la qorayaa loo dhiibayaa buu ahaa ninkaasina waxaa loo dhiibayaa ciddii aamin ah ee gaadhsiin karta loo dardaarmayaasha ciddan loo dardaarmayo cidda gaadhsiin karta ama u ilaalinaysa ayaa loo dhiibayaa hadday iyagii joogaanna dee iyagii baa loo dhiibayaa ahamu shay waa inuu gaadhaa ehelkiisa si aan hadhow la ysu qabsanoo loo kala bixin loo murmin markhaatiyaalna waa in loo sameeyaa qoraal iyo markhaatiyaal inantaa kale waxay leedahay sakaat fidrigii maadaama aanay jirin halkaa aanu joogno raashinkan cid qaadanaysa waddanka ma u soo diri karnaa waaba sida wanaagsanba mar haddaad joogto meelaan raashinka laga jeclayn
halkan baa laga jecel yahay oo dadku u baahan yahay intoo isku soo dartaan soo dira way jiraan inay labada meelood kala qiimo yihiin xaggaa dabadduna waa qiimo gaara kiiloogu halkanna waa qiimo gaara $5 baa North America lagu qiimeeyaa kiilooga ama aan idhaahday 2 kiilo barhka inta qofka laga bixinayo ingiriiskana waa 6 pound meelaha ama 6 gini oo ilaa $7 iyo siyaado u dhigmaya laakiin halkeennan de waxaan filayaa inuu $1 iyo wax yar yahay qofka inta laga bixiyaa saan filaya gadbadu waa dhowr iyo $20 marka kiiloogiina waa $1 de waxaba laga yaabaa kiilo iyo wax yar inuu noqdo marka haddii dadku ay ku idhaahdaan intaasoo qof oo min $5 baan soo diray ka guddoon qofkii walba 2 kiilo iyo barh ka bixi baaqiga soo hadhayna dadka hilib u sii isku cun arrinkoodu ha noqdee adigu jeebka ha ku shubanine ha nafaqaystaan masaakiintu haddii loo soo qiimeeyey $7 iyo badh oo $1 iyo badh uu noqday 2 kiilo iyo barhki $6 hadhay dee waa sadaqo sunno ah oo la socotay sekadii marka ummaddaa looga faa'iideynaya dhar iyo dhuuni mid kasta ha loo siiyo waa mid la isweydiiye marar badan meesha qiimaha la eegayaanoo halka raashinka laga bixinayo raashinuun baa la bixiya ku filan dadku aan caamays ahayn oo wanaagsan oo quudkii dhexdhexaadka ahaya bariis daqiiq timir mid kasta aado marka haddii aad raashinkii bixisay waxa ka soo hadhaana waa sadaqa ay dadkaas leeyihiin ninkaa kale wuxuu ina weydiiyey waalid kharifa xukunkiisa macnaha waalid asaasaqoon waxba garanayn soon laguma laha iyo salaad kol haddaanu caqli lahayn laakiin sakaad fidrigii waa lagu leeyahy sakaad fidriga qof kasta oo muslima waa lagu leeyahy ama ha waalaado ama ha miyir qabo ama ha yaraado ama ha weynaado kol hadduu uurka soo dhaafo ifka joogo intaasay cibaadadani kaga duwan tahay cibaadooyinka kaleoo waa gurma deg deg ahoo dadkao dhan lagu waajibiyey markaa sakaad fidrigii unbaad ka bixin laakiin salaaddii iyo soonkii waxba lagu qasbi maayo waktiga jumcadu waa goorma waa markii duhurka waktigii duhurkunbay jumcaduna noqon marka bartanka qoraxdu ay ka leexato ee taa la xaqiijiyo ayaa duhurka loo adaami jumcadana loo adaami qowlkaasaa raajixoo jumhuurulculamaa ay qabaan madhabulxanaabila baa wuxuu qabaa in laga yaro horreysiin karo laakiin sida raajixa waa waktigii duhurka inuu yahay su-aashaa kale aada umaan fahmina la xidhiidha aayaadkaas u dambeeya suurat lbaqara nebigu sala allahu calayhi wasalam aada buu labada aayadood u ammaanay qofka habeenkii akhriyana inay ku filan yihiin buu sheegay nuur isaga la siiyeyna ay tahay wahada ma aquluhu waastaqfiru اllah wallahu aclam ilaahay subxaana watacaala sheekha ka abaaliyo innagana haynagu anfaco intaa waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii su-aalaha diiniga ahaa oo muddadii bisha rabadaan inooga socday masaajidka rusheeye ee bartamaha magaalada hargeysa sheekh maxamed dad badan oo gudayo dibadba joogaba waxay codsanayaan in aad u ducayso ducadana noo raac insha allah dadka cudurka ka cabanaya caafimaad allaha siiyo caafimaad allaha siiyo caafimaad allaha siiyo kuwa caruur la-aanta ka cabanayana qaar barakale allaha siiyo kuwa cidhiidhi ka cabanayana cidhiidhiga allaha ka saaro dadka muslimka ee adduunyada ku dhiban ee falastiiniyiintu ay ka mid yihiinna ilaahay nasrigiisa ha siiyo cadowga ilaahay ha uga heliyo cadowga ilaahay ha uga heliyo cadowgooda allaha jabiyo cudud wanaagsanna iyagana allaha siiyo walaalahoodna kuwo u heliyo oo xamaaso diini a gasho allaha ka dhigo dembigeen iyo kii waalidkeen ba allaha dhaafo laylatulqadriga allahayna waafajiyo laylatulqadriga allahayna waafajiyo camalkeenna qiyaamaha mid aynu ku faraxno allaha ka dhigo miisaanka xasanaadka allaha inoogu weyneeyey waxalla waxaynu ka baqayna allah inaga badbaadiyo cudurrada iyo cidhiidhiga iyo cadowga intaynu ka baqaynaba allah inaga badbaadiyo waxaynu haynana allah inoo barakeeyo waxaynu hayna allah inoo barakeeyo waxaynu hayna allah inoo barakeeyo dad iyo dunyo iyo dal iyo diinba allah inoo barakeeyo وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك 10 كو جرا 10 بري waa jiraa su'aaluhu baa dhamaaday insha Allah 10 كو جرا بريت